Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Maalin maalmaha ka mid ah Nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo eegaya xaaladda ay dadka ku sugan yihiin ayuu arkay nin reer miyi ah oo dhahaya yaa kariim yaa kariim yaa kariim. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu soo ag istaagay ninkii, nabigana wuxuu dhahay yaa kariim yaa kariim yaa kariim. Ninkii reer miyiga ahaa asna wuxuu yidhi yaa kariim yaa kariim. Rasuulkaasna sallallahu calayhi wasallam wuu ka daba dhahay. Ninkii reer miyiga ahaa intuu fiiriyay ayuu nabiga ku yidhi, ninkaagan wejiga faranow ee qaabka qurxoon ma waxaad iigu jeesjeesaysaa inaan ahay reer miyi darteed? Ilaah baan ku dhaartay waxaan kuugu dhaafay wejigaagan furan iyo qaabkaagan toosan, ma ahane nebiga ayaan kaaga dacwoon lahaa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam intuu dhoola cadeeyay ayuu ninkii ku yidhi, horey muu aragtay rasuulka sallallahu calayhi wasallam? Ninkii reer miyiga ahaa ayaa ku jawaabay, maya, laakiin waan aaminay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaana ku yidhi ninkii reer miyiga ahaa, daba ku bishaaraysa inaan ahay rasuulkaaga iyo rasuulka muslimiinta oo dhan. Ninkii ayaana jilba jabsaday, wuxuuna isku dayay inuu nebiga gacanta ka shumiyo, balse nebiga ayaa ku yidhi, ha igu samee sida loo sameeyo boqorada Ruum. Isla markiina waxaa soo degay Jibriil, wuxuuna nebiga ku yidhi oo rasuulka ku yidhi, assalaamu calaykum yaa Maxamed. Ku dheh kan kula jooga yuusan damcin, maanta waan xisaabin doonaaye maalinta qiyaamaha. Ninkii reer miyiga ahaa ayaa fariintii gaartay, wuxuuna yidhi, rasuulkii allow, alla may xisaabinayaa? Nebiga ayaana ninkii ugu jawaabay, haa. Ninkii reer miyiga ahaa ayaana dhahay, wallaahi hadduu xisaabiyo waan xisaabinayaa. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa ninkii ku yidhi, oo maxaad rabbigaaga ku xisaabinaysaa? Ninkii ayaana ku jawaabay, hadduu dembigayga ugu xisaabiyo waxaan ku xisaabinayaa dembi dhaafkiisa, hadduu ugu xisaabiyo baqiilnimadeyda waxaan ku xisaabinayaa deeqsinimadiisa, hadduu ugu xisaabiyo tabardaradeyda waxaan ku xisaabinayaa awoodiisa. Rasuulka ayaana ooyay ilaa ay arrintiisa gaartay garkiisa. Markaas ayuu Jibriil soo degay, wuxuuna yidhi, rasuulkii allow, rabbigaaga wuxuu ku leeyahay, jooji oohintaada waxaa ku mashquulay malaa'igta carshiga xambaarsan. Midkii kaa oohiyey yuusanna xisaabin ma xisaabin doone, wuxuuna noqonayaa rafiiqaaga jannada. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday, haddii uu ku anfacay laag saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.